iyada nafteeda sicir bararka meesha uu marayo oo dollarku abid meel uu san gaarin ayuu maraya 3.20 42 ayuu ka maraya deegaamadan Boosaaso Garowe magaalooyinka kala duwan gaalkacay meesha ugu hooseysa intaan arkay waa 41 iyo bar بينما deegaamada kale aysan la qabin gaalkacay waxa ajaa'ib laba dukaano isku xiga midna waxa lagu sarrifayaa halka dollar $45,500 midna waxa lagu sarrifayaa $25,000 meesha hada waa laba dukaano isku dhagan laga bilaabo gaalkacay qaybteeda koonfureed ilaa Kismaayo ilaa Baydhabo dhammaan inta halka wada xigtaay magaalada ugu sareysa waa xamar $25,500 way inta kale Baydhabo Kismaayo Beledweyne gaalkacay kulli waa $25,000 xooya farqi maxaa keenay marka kana inuu 42 maray 43 bal 44 buu gaaray oo wax yar buu dib u soo noqday limaada maxay idin la tahay marka inay ka dhalan karto dadkeenu noloshooda seeb noqonaya waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay ka fakaraan waanu xoogaa dollar aan qaatay dollarkii baaba ii badanaya oo haddaan $100 $3 milyan la igu sarrifi jiray 4 milyan iyo xoogaa baan qaadanaya laakiin aqliyadaasi waa aqliyad foorarta oo aan sax ahayn waxa laga yaabaa inuu suuqa qofka nooca u fikirayo uusan ka warhayn oo uusan ogeyn kiilada yaanyada ah ee bila ka hor la gadi jiray 25,000 maanta inay 37 38 40 ay marayso wuxuusan ogeyn rubaca hilibka ee la siin jiray nuskiilada hilibka ee hilibgeelka ee la siin jiray waxaan ku raaday 70,000 80,000 90,000 inuu maanta 180 maray intii 100 la siin jiray rubici la siin jiray 50 iyo 40 uu 90 ka maray maxay idin la tahay noloshiisu inay noqonayso ninka joornaatada soo shaqaystay ee 300,000 soo qaatay ee biilkii reerkiisa laga rabo ee suuqa la yimi ee rubuca hilibka lagu yiri 180 buu maraya hilibgeelka saadiyeeli kara wuxuu ku samayn karaa wuxuu ka bixinayaa kiilada dadku raashinka uma wada gataan waxaan ku raahdaayay jimil inta ugu badan mujtamaca waa dadka kiilada qaato oo dukaamada ka iibsada oo ka kiila qaata maxay ku tagaysaa marka haddii uu qalaylka uma goyso reerkiisa uu quudan lahaa iska daa iidaamkii iyo suugadii wuxuu noqonayaa marka qofka noocaas noloshiisa ninka 2 milyan neefka kala baxay ama milyan iyo barka oo aad garan karto inta uu korinayay neefkaas oo reer dhan u soo safray oo neefka suuqa keenay oo 2 milyan ama milyan iyo 700 marka laga siiyo suuqa geeyay oo rabo dollarka inuu dib u xaraashto oo gacanta dambe 45 laga siinayo maxay u geyn kartaa bay kulanta noloshiisu maxay noqonaysaa waxaan filayaa inaad daawateen kiliba laga soo duway xerada ariga magaalada Garowe dad ooyay oo ilin ragax ka siinay wuxuu la ooyay dadkaas dad qaarkood iska qaylinay oo cabanaya oo gacmaha dhiganaya oo say yeelan la maxaa ka oohinaya dadkaas waa xaaladda iyo wiciga ay ku jiraan iyo noloshu sida ay tahay iyo halka ay marayso yey mas'uuliyad ka saaranta soo inaga ma aha dadka ay mas'uuliyad ka saaranta soo madaxda dawladda ma soo mas'uuliyiinta kala duwan ma aaway ru'asaa'ul qabaa'ilki dadkii qabaa'ilkan madaxda u ah ee balad iyo baadiyaba dadka degan xilku ka saarna macnaheedu ma aha kaliya qabiilku inay qabiilnimadu ay soo baxdo maalintii wiil la dhaawaco laakiin dadkii uu mas'uulka u ahaayo irbad lala dhacay darooga oo fisqi iyo lagu faafinayo oo sicir bararku inta uu ku gaaray oo wax lagu cashayo dadka aysan haysan oo ninkii miskiinka ah ee qoyskiisa kamid ah neefku uu soo kaxay halka la maray oo kii dhowrka 100,000 soo shaqaystay si uu gala reerkiisa maxay kula tahay inay noqonayso seeb u noolaanay mooyeen marka dadku sida u fakari kari mise mas'uuliyadu waa in yar oo shoora lagu noqday kaliya ilaahay ha uga baqaan subhanahu wa ta'ala dadka madaxda ah ee madaxda qabaa'ilka ee isimada leh ee nabadoonnada leh ee nin garboodka leh ee dadkooda iyo ummadda mas'uulka ka ilaahay ha uga cabsadaan subhanahu wa ta'ala hana arrinkan sidii wax looga qaban lahaa ha iska kaashadaan macquul maaha mas'aladaas qodobka saddexaad oo nuftiisu dareenka weyn leh mudooyinka u dambeeyay bal labadii sano ugu dambeysay waxa xargaha soo goostay fisqiga noocyadiisa kala duwan magaaladan ugu yaraan mudadii u dambeysay waxa lagu qabtay wax 10 bandhig faneed ku dhow haddana kuwa kala raba in lagu qabto
maalinba maalinta ka dambaysana way soo kordhiyeen bandhig faneedyadaasi waxay caqaaqiir ku yihiin iyo irbad lala dhacayo qiyamka xishoodka akhlaaqda habdhaqanka ummadda dhallinyaradeenii aynu awalba la yaabanayn wadcigoodu siduu ahaa hadday waxaa ku xeroodaan oo habeen walba islaan qaawan oo nuudo ay soo istaagto oo maalin kasta ay waxani ay dhacaan maxaynu uga cabanaynaa hadhow in kufsi u dhaco maxaynu uga cabanaynaa inay zinadu badato maxaynu uga cabanaynaa mooryaannimada iyo dhaca iyo ikhtidaafku inuu bato maxaynu u leenahay gabar 4 jir ama 7 jir ama 8 jir baa la kufsaday practically baa loo tusaya oo la kicinaya shahwadoodii oo dareenkoodii la kicinaya oo qiyamkii iyo akhlaaqdii laga baabiinaya yaa mas'uuliyadda qaaday dawladdu muwayan ummadda diinteeda iyo akhlaaqdeeda mas'uul ka ahayn yay maamulaysaa iyo xukumaysaa hadday dadkuba qiyamku ka dhumo oo ay noqoto meeshaniba meel qiyamku mujtamaca uu inxitaad uu ku dhaco oo dhallinyarada akhlaaqdeedu ay baaboodo yaa la maamulaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga baqaan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaarinaynaa madaxdayada inay ilaahay nooga baqaan oo xilkooda iyo mas'uuliyaadkooda kuma haysano laakiin waxa ay noo qaadeen amaama rabbil caalamiin oo ay ku dhaarteen ha ka soo baxaan oo mas'uuliyadooda ha ka soo baxaan haddii kale adduunkana annana waa ku inkaarayna ilaahayna aakhira waa kula xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala mujtamaca naftiisu waxa la rabaa inuu noqdo mujtamac xay ah oo nool dadka Soomaaliyeed waxa iskaga qaldan laba qodob in fawda la sameeyo oo wax la burburiyo iyo in dadka xilka iyo mas'uuliyaadka loo dhibay lala xisaabtamo baynahuma furuuq waxa aan haysano inagoo ilaashanayna oo la xijaclo ina ka hayso oo aan burbur ogolayn oo aan khalad ogolayn oo madaxda iyo ummadda diinta madaxda dalka mas'uulka uga la ixtiraamayo ayaa haddana xilka iyo mas'uuliyaadka lagu xisaabtamay laakiin ma aha inaan niraahno wallahi maxaan ku iraahaa marar baa laga yaabaa inaad odayaal kala sheekaysid markaas wuxuu leeyahay hadda seebaynu yeelnaa maxaan ku iraahaa Soomaali badanna gobolada waa ina ka liitaan inaguna xoogaageennaynu haysanaa hadda xoogaageena iskama dubin karno oo in wax la dumiyo iyo in wax baaba'aan farqi uma dhaxeeyo miya ma wayan u dhaxayn in wax la saxo ma wayan u dhaxayn in khaladka jira la ishaaro ma wayan u dhaxayn mujtamaca wajahaadkooda iyo madaxda intay isu yimaadaan lala xisaabtamo madaxda oo loo tilmaamo war ummadda tansaan dan uguma ahsaana dan ilaahay uga cabsada manama dhaqi karto sidani dadku ma wayan oran kari iyadoo ay lixjacla ka hayso dadkani ummadan wadankan degani madax kasto timaada deegaankan amnigiisa iyo horumarkiisa uga lixjacla baday waxaana daliil ku ah wixii xaalada la soo maray wixii isbedel la soo maray wixii qalalaas la soo maray kagama samata bixin ummaddu madax siyaasad xakiima oo rashiida adeegsanaysa laakiin waxay ummaddu kaga sabata baxday dulqaadka iyo amni jacaylka iyo deganaanta mujtamaca مسألة waxaan filayaa in aad loo fahmay saas darteed dadka noocaasihi waa dadka ugu wanaagsan oo la maamulo ilaahay uga cabsadaan subhanahu wa ta'ala iyaga naftoodana waxa laga rabaa inay noqdaan taqyiirka iyo isbedelka inay qayb ka noqdaan in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim qofku waa inuu wax sixi karaa waa inuu ra'yi leeyahay waa inuu maxaan ku raahday qofku xornimo dareemaya waa inuu mujtamaca iyo dalka iyo wadanka iyo diinta waxa ka bacsamaya uu wax ka sixi karaa oo xor u yahay